بروفيسور أحمد إسماعيل سمتر ومدوينكي ودنبي سعودالة ku gaala bixinay gobolada bariga Soomaaliland isla markaana uu kulama la qaadanayay ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalooyin dhowr ah oo professorku Socdaal ku tagay waxana uu professorku saaka khudbad taariikhi ah oo ku saabsanay siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland oo ka jeediyay hoolka jaamacadda culumta badda ee magaalada Berbera kulankaas oo ay ka soo qayb galeen ardayda kala duwan ee wax ka barata jaamacadda culumta badda ee magaalada Berbera iyo dhalinyaro kale oo aad u tiro badan iyagu jaanis u helay inay ka soo qayb galaan khudbadda uu Professor Axmed Ismaaciil Samatar uu jeedinayo ardayda jaamacadda culumta badda ee magaalada Berbera sidoo kale waxa kulankaasi goobjoog ka ahaa maamulka gobolka Saaxil iyo kuwa degmada Berbera maariyaha dekedda caalamiga ee Berbera Port iyo mas'uuliyiin kale oo aad u tiro badan oo u soo hiloobay ka faa'iideysiga khudbadda Professor Axmed Ismaaciil Samatar Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo khudbadaasi ku dheeraaday ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa sida tan Somaliland iyo siyaasadda dibadda weeyo qodobkan maanta ka hadlayna waan soo gaabin Somaliland wadan ballaaran aad iyo aad u weyn 4 milyan oo qof in ku dhow ay ku nooshahay noocyo badan leh wata saaxil bad oo de soconaysa ilaa halkeed Red Sea ilaa Eritrea Djibouti ina geynaysa Red Sea gabla waa 850 kilometer baan filayaa inay tahay line ka dheer ee xeebta way dheer 850 kilometer bal xisaab iyadoo wada highway halka ay marayso oo ilaa wada ay marayso khayraadka ku jira petrol ha noqoto gas ha noqoto iyada kalluunkii bay mushtarigi waxa weeye عندي سؤال مدرسة عندي لكن سؤال هو محيط هاي فورين بوليسي سياسة الدبادة وحلا يراها محيط سياسة الدبادة وحوي أظن أبغى definition كسوق وحوي وضن سمايستي فرسمو الدنيا ذكلا يكون حقرا strategic thinking for a government to penetrate the rest of the world وطن سمايستي فرسماء الدنيا ذكلا يكون حقرا marka ay soo idlaatay khudbadda Professor Axmed Ismaaciil Samatar ayaa wax isla goobtaasi su'aalo la xiriira siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland ku weydiiyay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii iyo ardaydii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay munaasabadaasi سواء بروفيسور كوسي هوفن uga jawaabay dhamaanba su'aalihii kala duwanaa ee ay weydiiyeen dhageystayaashii khudbadiisa Khalid Xasan Nuur telefishinka madaxa banaan ee Bulsha TV magaalada Berbera